lix dawladood ayaa halkaas ku yimid haday tahay dawladda Jamhuuriyadda Djibouti oo mudane Ismaaciil Cumar Geele uu hogaaminayay iyo haday tahay dawladda Soomaaliya federaalka dawladda Soomaaliya oo Xasan Sheekh uu hogaaminayay iyo haday tahay dawladda federaalka Itoobiya oo Abiy uu hogaaminayay iyo haday tahay dawladda Kenya oo wafti ka socday iyo haday tahay dawladda deegaanka oo hogaaminayay madaxweyne Mustafa iyo haday tahay dawladda dhaqanka ee ka dhisan geeska Afrika oo hogaaminayay ugaas Mustafa marka lixda dawladood ayaa isku yimid bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh adbaani salaami walaalaha qaaliga qiimaha iyo qadarinta badan meel kasto joogtiin waqtiyada kala duwan ee aad ku kala tukantiin walaalkiin cali dhaqan youtube-ka naga daawanaysiina waa jiritaan 12 soo dhawaada ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad haduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan commenti aan ka dhiibto sawirkii shalay min Shabeelle ilaa iyo Aisha tabar rabaa insha Allah inaan aan qayb tayda aan commenti gareeyo ama aragtidayda aan ka dhiibto haduu ilaahay yiraahdo soo dhawaada baan ilaahay mar labaad iyo mar saddexaadba shalay waxa ka dhacay arin weyn oo aan la dheelsan karin haday tahay dhanka horumarka iyo haday tahay dhanka siyaasaduna sideedaba waxay u baahan tahay deganaashaduna wuxuu u baahan yahay horumar saddexduba way isku xidhan yihiin siyaasad degan waxay keentaa horumar iyo hor u socod marka sidaa darteed waxa shalay isku yimiday madaxda geeska Afrika haday tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti iyo haday tahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo haday tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya saddexdaasi waxa isku yimaadeen Shabeelle oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya una jirta caasimadda Jigjiga 29 kilomitir ku dhawaad deeta min Shabeelle ilaa iyo magaalada Aisha waxay caasimad u tahay degmada Aisha iyo caasimad u tahay degmada Aisha waa triangle waa meesha kala badha saddex wadan haday tahay Soomaaliya iyo haday tahay Djibouti iyo haday tahay Itoobiya haday tahay saddex wadan ay xad u tahay dadka qaarkood lama socdaan ma garanayaan degmadaas iyada waxa hoostaga tuulada leeyahay Geestir oo saddexda wadan ay isku yimaadeen marka Geestir waxay ka tirsan tahay Aisha ayay ka tirsan tahay degmada Aisha ee gobolka City halkaas baa la isku yimiday halkaasna waxa loogu yimiday oo intii ugu dambeysay halka fadhiyay ugaaska beesha ayatullah ugaas Mustafa waa ugaasyada ama waa ugaaska oday dhaqameedka Soomaali marka la yiraahdo ugu buufaarkiya karaamada badan marka halka shalay waxa lagu la fagurayo oo kala haatay ma ahayn in mashaariic xariga laga jaro laakiin waxa lagu la faguray waxa la isku soo qaaday waxa lagu shaandeeyay waxa lagu kala qaadqaaday waxa lagu heshiiyay qaabka ay noqon doonto geeska Afrika qaabka uu noqon doono haday tahay siyaasad haday tahay horumar intaba halkaas ayaa shalay lagu la faguray waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waan ugu hambalyeynaa in halkaas ay isku yimaadeen Aisha lix dal ama lix dawladood baan idhaahdo lix dawladood ayaa halkaas isku yimaadeen haday tahay dawladda Jamhuuriyadda Djibouti oo mudane Ismaaciil Cumar Geele uu hogaaminayay iyo haday tahay dawladda Soomaaliya federaalka dawladda Soomaaliya oo Xasan Sheekh uu hogaaminayay iyo haday tahay dawladda federaalka Itoobiya oo Abiy uu hogaaminayay iyo haday tahay dawladda Kenya oo wafti ka socday iyo haday tahay dawladda deegaanka oo Mustafa oo hogaaminayay madaxweyne Mustafa iyo haday tahay dawladda dhaqanka ee ka dhisan geeska Afrika oo hogaaminayay ugaas Mustafa marka lixda dawladood ayaa isku yimid hadana u haysan dawladda oo ugaas Mustafa uu maamulo waxay leedahay ganday leedahay baarlamaan bay leedahay waxay leedahay dhul bay leedahay inta oo shacab ay leedahay marka waxaan leeyahay hambalyo ciyaartuna hadda un bay ku tahay
hadda un bay kow tahay sahal oo la socdo arrinka halka la isku yimidayna shalay ma ahayn oo kala haatay in mashaariic la fuliyay xariga laga jaro waliba mashaariicdaasi inta u badan waxay quseeyaan dawladda deegaanka iyo Itoobiya laakiin sababta la iskugu yimiday xadka kala bara ama degmada saddexda dal isku xidha ee Djibouti xad la leh Soomaaliya xad la leh macnay bixinaysaa marka mashaariicda waaweyn ee horumarineed iyo kuwa dhaqaaleba ee laga fuliyay dawladda deegaanka waan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay ciyaartu hadda un bay ku tahay ugaas Mustafana waan ugu hambalyeynaa waxa soo jiitay shalay xaqiiqatan oo Xasan Sheekhna uu ka yaabay awoodda uu Ilaahay siiyay ugaaska madaxweyne inuu Umaro si adag laabta u galiyay oo soo dhaweeyay أبي أو لقى ففوري كريوابه حسن شيخ وايابه وحولي واسك باشا عيسى ومقل يجرونه لكن أركي ما أنت حارون تيسولي باللوجتك هدي ودرب على لوجتك لو حل ده لا درب عاصمة دي لبعض الدولة إثيوبيا لكن أي شعب لوجتك حارون تي وفديه باللوجتك فديه سي باللوجتك مركا كرامة ده هي شرفته iyo ciisada Ilaahay baa gacanta ku hay isagana qaybiye ugaaskana isaga siiyay marka waan ugu hambalyeynaa ugaas waxaan leenahay magacaagu iyo madaxaagu haraago Allah ku barakeeyo waxaan kaloon leeyahay hawshu waa u bilaabantay hawshu waa sida ay ku bilaabantay weeyaan min Muqdisho ilaa iyo Ayshaa min Muqdisho ilaa iyo Ayshaa Ayshaa halkay ku taalo Google-ka ku qor maapka halkay ku taalana arag halka buu Xasan Sheekh u joogay la soco Xasan Sheekh oo Muqdisho maamula Allah haydeen Xasan Sheekh wuxuu ku xiran yahay isaga ayaa maxaa la yiraahdaa xaafad markuu aanu bixi karin wuxuu yimiday waa ay shacweeyaan شعب أيا لك يعني مركا تاسين فرين ويان معنا بحنيسا هلا لا صعده لكن عيارت هذا أم بيكو تهي همبلي يبان الله أد بان إني سلامي خيري وناك بني رجينا إن شاء الله وحنسوق نبى ويتابع كلويان طلابة كله حكتا محين قدونتا كذل بانك وجان دونتين أد بان إني سلامي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نبدي